بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم walaalyaal kulankeena caawa waxaynu kaga hadlaynaa arrin aad muhiim ugu ah horumarinta aadanaha darsigaas oo aasaasi ah marka darsigaas haddaynu fahmno waxyaalo badan oo soo socdana way noo fududaan doonaan marka waxaan idinka rajaynayaa inaad si fiican ii dhegaysataan xataa haddii aad ku fahmi weydaan hal mar inaad laba mar saddex mar dhegaysataan wuxuu ka hadlayaa caawa kulankeenu wuxuu ka hadlayaa maskaxda bini aadamka oo loo qaybiyo laba qaybood maskaxda baraarugsan iyo maskaxda aan baraarugsanayn maxay kala yihiin maskaxda baraarugsan waxa weeye maskaxda caadiga in u naqaano inagu oo ah midda aan ku fikirayno wax ku qabsanayno dadka kula sheekaysanayno wax ma garanaysaa ama amirta ku bixinayno yacni wax ku baranayno waxaasoo dhan waxa weeye waa maskaxda baraarugsan waxaa jirta maskax kale oo la yihahdo maskaxda aan baraarugsanayn af carabiga waxaa lagu yidhaahdaa alcaqlu الظaahir iyo alcaqlu الbaطin ama alcaqlu الwaaci ama alcaqlu laa waaci ama laa shucuuri ingiriiskana waxaa lagu yidhaahdaa subconscious brain ama conscious brain conscious brain ama subconscious brain ama mind muxuu markaa tii hore waynu fahmnay maskaxda baraarugsan waxay qabato maskaxda aan baraarugsanayn maxay qabataa intay waxay qabato aynaan ka hadlin waxaan sheegaynaa intay la-eg tahay waxay aad iyo aada uga weyn tahay maskaxda baraarugsan matalan haddii laba kun oo unug ay isticmaalayso maskaxda baraarugsani maskaxda aan baraarugsanayn waxay isticmaalaysaa 40 milyan oo unug maxaa halkaa ka garanaysaa haddii orodkeedu uu yahay ama surcadeedu ama speedkeedu 40 bit per second hadduu yahay 40 bit qeybta ugu yar wey bit wax lagu xisaabiyo electroniyaadka ee ugu secondkiiba tan kale waxay noqonaysaa 40 milyan oo bit secondkiiba marka waxaa halkaa ka garanaysaa inta ay labalaabayso maskaxdaasu waxa ay u sheegto maskaxda baraarugsani maskaxda baraarugsan aan baraarugsanayn maxay qabataa maskax wax kasta oo ilaa intii aada yarayd ilaa aad ka weynaatay aada maqlaysay ama baranaysay ama macluumaad ah ama information ah halkaasay ku oolaanayaan waxyaalaha aada baratay waxyaalaha la xasuusanayo waxaasoo dhan waxa weeye waxay ku kaydsamayaan halkaas sidoo kale waxyaalaha la yiraahdo involuntary actions shaqooyinka aan adigu shaqada aadan ku lahayn sida wadnahaga dhaqdhaqaaqiisa neefsigaaga muruqyada dhaqdhaqaaqooda waxaasoo dhan waxa iska leh oo shaqadeedii ay tahay maskaxda aan baraarugsanayn halkaa waxaa ka garanaysaa muhimadda ay leedahay marka maskaxda aan baraarugsanayn haddaan mathaal usoo qaadano labada maskaxood maskaxda baraarugsan oo aan ka dhigno qof saaran maroodi qofkiibuu noqonayaa maroodigina wuxuu noqonayaa maskaxdii aan baraarugsanayn intay qof iyo maroodi kale la eg yihiin waad garanaysaa intay kala wen yihiin haddii marka maroodigii uu dhinac u jeedo qofkiina uu dhinac u jeedo ma laga yaabaa inuu meesha u socday uu gaaro lagama yaabo marka keliya uu gaari karo meesha u socday waxa weeye markuu maroodigii iyo qofkii ay isku dhinac u socdaan saa awgeed baad fahmi doontaa waxaan uga jeedo macnahaas laakiin wax yar aan ku hakanno oo aan tusaale usoo qaadano shay aad ka dareemi kartid maskaxdaasu inay jirto dad baa laga yaabaa inay leeyihiin muxuu ka hadlayaa caawa yaasiin ma shay khuraafaada ma iska hadlaya mana wareerinaya waxaa kuugu daliila maskaxdaasu inay jirto haddii maalin walba aada iskoolka aad u socotid ama shaqadaada aada dariiq u martid maalin walba dariiqna ka soo noqotid markaa soo noqonaysa soo qaadid oo aada mathalan gaari wadatid waxaa dhacaysa waaga dambe markay maskaxdaadaas aan baraarugsanayn ay warkaas xafido
oo ay kaydiso in adigoon xataa ka fekerin aad dariiqi iska martid oo aad marmarka qaarkood meeshii tagtid oo tiraahdid war meeshiisee baan ku imi xaggee soo maray. halkaasaad garanaysaa ma aadan isticmaalin maskaxdii baraarugsanayd ee wax lagu qabsanayay ee maskax kale ayaad isticmaashay. marka waxaa la yidhaahdaa waa kanzi, waa treasure, waa wax aada u qiimo badan oo laakiin dadka badankiis ay ka dhegala yihiin oo ka indhala yihiin oo ayan garanayn macnihiisa. ayib maxay kaloo kaydisaa maskaxdaasu? caadaadka, waxyaalaha dhaqanada aad samaysay oo aada caado ah ama dareemada ama muxuu ah dabeecooyinka aada leedahay, waxaasoo dhan waxay ku kaydsamayaan halkaas. saa awgeed baa haddii waxyaalo badan oo qashin oo xun ay ka buuxaan maskaxda, ficilkaagu wuxuu noqonayaa mid xun. fikrado xun baa ka buuxa, ficilo xun baa ka buuxa, dabeecooyin xun baa ka buuxa. waxa weeye waxay soo celinaysaa oo jirkaagu mar walba maskaxdaadu ay ku fekeranaysaa oo samaynaysaa wax xun. waxa kaloo marka masalan kuugu soo qaadanaya, masalan haddaad damacdid inaad fartaada tan dhaqaajisid, masalan waa kugu soo dhacday, caqligii baraarugsanaa baa yihi farta dhaqaaji. waxaad arkaysaa fartii intaasoo muruq inay fartaa shaqaynayaan say fartaas u dhaqaaqdo. marka yaa muruqyada ka shaqaysiinaya? maskaxda aan baraarugsanayn baa ka shaqaynaysa. su-aashu waxay tahay, haddii maskaxdayda wax xun waagaan yaraa laga soo buuxiyey oo mathalan ilmaha yar haddii la yihahdo waad xun tahay, ma najaxaysid, caqli ma lihid, balaayo kugu dhacday, xayawaan baa tahay, waxa ilmaha yar haddii lagu yihahdo waxaas maskaxdiisii waa kaydinaysaa, maskaxdiisii waa kaydinaysaa. hadda waxaasuu rumaynayaa. marka la yihahdo orod kaale wax baro, anu wax ma baran karuu leeyahay. haddii la yihahdo waxaa xallin ma xallin karuu leeyahay. xisaabta ma taqaana, maya ma aqaani aniga, leanna waxaas waa wax madaxiisa lagu shubay. su-aashu marka waxay tahay, wixii xumaa maskaxdeenna ma laga saari karaa oo wax wanaagsan ma lagu bedeli karaa? jawaabtu waxay tahay haa, laakiin sida loo samaynayo waa inaad taqaana iyadana. maskaxdana waa buuxdaa. waxaa jira mathal oranaya atakhaliyatu qabla taxaliya. marka hore waa inaa wixii meeshii ka qaadaa, markaa aa wax kale ku shubtaa. maskaxda marka faraha ma gelin kartid oo kama soo qubi kartid wixii, waxaad qaadaysaa 3 tallaabo ayaad qaadaysaa. 3daa tallaabo oo kala dameeya. kow waxaa samaynaysaa waxa la yihahdo istirkhaa, waad isdejinaysa adigoo dhan. istirkhaa yacni qof aan isku buuqsanayn oo degan oo yacni baad iska dhigaysaa. taasna waxaa lagu sameeyaa neefsiga. mathalan saa u neefsanaysa waa saan, markaad tiraahdid waa isku celinaysaa neefti, waa soo daynaysaa ilaa dhowr mar, 10 mar baad saa samaynaysaa ilaa maskaxdaadu ay oxygen badan qaadato oo ay degto. taas waa midda koowaad. midda labaad maxaad samaynaysaa? waxaad ku hadlaysaa wixii aad rabtay inaad heshid ama wixii a waxaa ku bedeli lahayd. waxaad oranaysaa ilmayahu waa fiican tahay, waad caqli badan tahay, waxbaad baranaysaa, ama adigii baa isleh waan fiicnahay, caqli baan leeyahay, waxbarashadeedu aad bay u fiican tahay, weliba mustawahigu mustawa weyn buu noqon karaa. waxaasaad iskula hadlaysaa muddo 10 daqiiqo ah. hays oranin waa waalnahay, ma waalnahay, maxaan isula hadlayaa? maaha waalii, waa wax la bartay oo la ogaaday. adaa nafsadaadii la hadlaaya. markaas khudwada labaad ama tallaabada labaad muddo wadid, tallaabada saddexaad maxay noqonaysaa? indhahaad isku qabanaysaa, markaasaad waxaad tasawuraysaa oo maskaxda gashanaysaa adigoo wixii wanaagsanaa ah, adigoo najaxay, adigoo lacag badan masalan haddaad lacag rajaynaysa helay, haddaad jiranayd adigoo caafimaaday, haddii ma garanaysaa aada madaxnimo rabtay adoo madax noqday. suuradaasoo cad baad indhahaaga oo xiran baad wixii arkaysaa ood fiirinaysaa. 3daa khudwo markaad samaysid, maskaxdii waxa ku dhacaya waxa la yihahdo brain wash, dhaqitaan maskaxdeed ama ghasiilulmukh. maskaxdii baa dhaqmaysa. inagu ghasiilulmukh ama brain wash waxay u naqaan waa wax xun. la, maskaxda si fiicanna waa loo dhiqi karaa. haddaa wax wanaagsan ku jireenna wax xun waa lagu dhiqi karaa. marka aday kugu xiran tahay maskaxdaadii haddaa wax wanaagsan inaad geliso diyaar u tahay, oo markaas hadhow ahdaaftii aa lahayd iyo dhinacii aad u jeeday uu kula jeensato maskaxda iyada. marka waxay kuu sahlaysaa taasu inay maskaxdaas baraarugsan aan baraarugsanayn ay kula shaqayso.
laakiin haddii waxun ka buuxaan aday kaa shaqaynaysaa oo kaa hor imanaysaa. saa awgeed muhiimad weyn oo weyn oo weyn bay leedahay inaynu maskaxdaas xisaabta ku darsano, maxaa yee waa ilaahay maskaxuna siiyey subxaanahu wa tacaala. waxaa jira marka xikmad oranaysa ilaali waxa aad ku fekeraysid, ilaali waxa aad ku fekeraysid, lianna waxaad ku fekeraysid waxay dhalinayaan waxyaalo aad samayn doontid. matalan haddaad rabtid inaad waxadid oo ku fekertid tuuganimo, maalin un baad waxabid doontaa, lianna maskaxdii ba waxa kuugu jira waxadid. hadday maskaxda kuugu jirto inaad dadka saacidid, maantaba haddaadan tabar hayn maalin baa tabari kusoo maraysa oo dadkii aad saacidid. haddaa wahluma jara marka ilaali buu yidhi maskaxdaada iyo waxaa ku fekeraysid, lianna waxa ka dhalanaya waxaad samayn doontid. waxaad samayn doontidna ilaali, maxaa yeelay waxa ka dhalanaya waxa aad dabeecad ka dhigan doontid, oo wixii aad intaasoo mar ku celcelisid waxay kuu noqonayaan dabeeco. waxaa dabeecadda ku ana ilaali, lianna masiirkaagii bay noqonaysaa. oo hadda dabeecaddaadu hadday tuuganimo ahayd, akhiiran xabis iyo dhibaato iyo jariimo iyo dhib baad gelaysaa. waxaan kaloo ku darayaa maskaxda oo ma garanaysaa aan baraarugsanayn, ma kala taqaan xaqiiqada iyo khiyaalka, ma kala taqaan. saa awgeed markaa indhaha isku qabatid oo markaa wixii fiirisid waxay umalaynaysaa run, waxi bay qabsanaysaa. waxaan jeclahay insha allah inaad wax ka faa'iidaysateen kulanka kan, laakiin wuxuu ahaa kulan aad u adag laakiin muhima. hadhowna duruusteena dame wax badan oo badan buu ka tari doonaa. intaasaan caawa kusoo gabagabeynaya. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.